raaxada maskaxda. Inta aad nooshahay waxa ugu weyn oo farxad ama murug ku dareensiiya waa sida aad u fakarayso. Ma faraxsan tahay? Waxa lagu siiyaa nolol, laguma siiyo nolol fiican ama nolol xun. Maalinta ugu wanaagsan noloshaada waa maalinta aad ogaatay in aad adiga 100% mas'uul ka tahay noloshaada iyo farxadaada. miyaad faraxsan tahay? Ma ku qanacsan tahay wax kasta oo aad haysato noloshaada? miyaanad rabin inaad haysato wax ka badan inta aad haysato? Jawaabta waa haa, waad rabtaa. waan huba inay jiraan waxyaabo badan oo dhib kugu haya ama aad rajaynayso inaad hesho, balse su'aashu waxay tahay yaa ka mas'uul ah wax kasta oo ku dhacaya noloshaada? Jawaabta waa mid fudud, adiga. adiga ayaa ka dambeeya wax kasta oo ku dhacaya noloshaada. maalinta ugu wanaagsan noloshaada waa maalinta aad ogaatay in aad adiga 100% mas'uul ka tahay noloshaada. aad iska joojisid cudurdaar iyo cabasho, ciladna u raadin wax kasta. adiga kaliya ayaa ka mas'uul ah inaad wanaagga ku raaxaysatid ama wado qaldan raacdid kadibna murugotid. haddii aad u fikirto inaad tahay qof nolosha waxba ka qaban karin, maskaxdaada waxay aamini doontaa arrintaas. waxaad isku qanci doontaa in aadan waxba qaban karin wax kasta oo ku dhacaya noloshaada. laakiin haddii aad u fikirto in aad mas'uul ka tahay wax kasta oo ku dhacaya noloshaada, maskaxdaada waxay bilaabi doontaa inay aqbasho in aad wax badan bedeli karto. marka aan badanaa qof u sheego inuu ka mas'uul yahay dhammaan waxa ku dhacaya noloshiisa, wuxuu ku jawaabaa maya, Ilaahay baa ii qoray waxa aan ku suganahay. anigana waxaan ugu jawaabaa, marka aad rabtid inaad heshid carruur, maxaad samaysaa? miyaadan raadin qof aad isguursataan? maxaad u dhihi weysay Ilaahay baa carruurta bixiya, isaga ayaan ka sugayaa? sababtoo ah waxaad ogtahay in Allah wax walba uu sabab u yeelay. marka aad la timaadid sababtana in aad helaysid carruur, waxaa lagu siiyaa doorasho in aad guursatid ama aadan guursan. doorasho walba waxaa ka dhalata natiijo. adiga ayaa dooran kara in aad ka dhigato noloshaada mid fiican ama mid xun. haddii aad wanaagga badiso, ajar shaqaysato, waxaad ku noolaanaysaa nolol macaan badan. ama in aad dembi iyo xumaan samayso maalin kasta oo nolol ciriiri ah ku noolaatid. adiga ayaa dooran kara in aad subaxda hore hurdada ka soo kacdo oo aad u dhaqaaqdo rumaynta riyadaada, iyo in aad iska sii hurdo oo riyoto. nolosha ma jirto cid ama qof aad ku eedayn karto xaaladda aad ku sugan tahay. waa adiga qofka gacantaada ku kasbaday. waa adiga qofka sameeyay doorasho qalad ah. waa adiga qofka qaatay go'aan xun. waa adiga qofka runta ka cararay. waa adiga qofka mas'uuliyadiisa aan gudan. sidoo kale waa adiga qofka isbeddel samayn kara. haddaba jooji inaad ku eedayso dadka kale xaaladda aad ku sugan tahay. aqbal mas'uuliyadda ficiladaada. qaado lahaanshaha natiijada ka dhalata qaladkaaga. saacaddu way socotaa, waqtiguna wuu ordayaa. waqti sax ah oo ku imaanaya ma jiro. noloshu waa doorasho. samee doorasho sax ah. isweydii su'aalahan: ma ku faraxsan tahay noloshaada? goorma ayayd maalintii kuugu farxad badneed noloshaada? waa maxay waxyaabaha ku farxad geliya? miyaad ku nooshahay nolosha aad jecleed inaad ku noolaato? haddii aadan ku noolayn, waa maxay waxyaabaha kaa hortaagan? waa maxay waxyaabaha aad samayn karto si aad uga hortagtid arrintaas? qor dhammaan waxyaabaha aad rabtid in aad gaartid noloshaada. marka aad ka jawaabto su'aalahan, waxaa kuu soo bixi doona lis ah waxa dhab ahaan kuu farxad geliya iyo waxyaabaha aad doonayso inaad ka fogaato ee aanad rabin. isticmaal labada liis ee kuu soo baxa si aad u samayso hadafyo kaa caawinaya in aad gaartid ku raaxaysiga nolosha. waxaa tusaale ah, haddii aad ogaato dhib ah dhaqaale xumo iyo lacag la'aan, sidoo kale aad rabto in aad farxad ku noolaatid, waxaad heshay 2 hadaf oo aad gaarto noloshaada. midda koowaad, waxaad go'aansatay inaad ka fogaato faqriga oo aad taajir noqotid. kan labaadna waa inaad farxad ku noolaatid. ha sugin in ay wax isbedelaan haddii aadan adiga wax bedelin. bedel dhammaan waxyaabaha aadan ku faraxsanayn halka aad ku sugi lahayd inta ay duruufuhu isbedelayaan. dadku u haystaa in ay nolosha isbedelayso iyaga oo aan go'aansan in ay wax ka bedelaan. waxay ka hor imaanayaan hadalkii Alle oo ah, Alle ma bedelo dad ilaa ay iyaga naftooda bedelaan.